السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك صادقتان الصور بعد ما مقشان بقى حد قصة دواتان برنامج كيني قصين كأمتك دولة سدوان عليه برشدة هذا تقع سبتها فضلا سبسكرايب ما أنتوا عن هذا قصة كل عظيم معاشقين اسقور سيدي لواد السنة كدب مقول سنة يجعل كاغي هوري كو إلا لبي توهنكي نوفمبر لبدا كون ستيج توهنكي لو ذاك قضبك ايميل لو ذاك قضبك فيسبوك لو ذاك قضبك تويتر لو ذاك قضبك واتساب marka laga hadlayo dhinaca lamaanayaasha jacaylku waa dareen dhab ah oo uu qof u qaado ruux kale kaasoo uu doonayo in uu la wadaago nolosha isaga oo aan ku qancaynin cid kale oo u bedesha waana mid isku mid ah oo haleela ragga iyo dumarkaba inkastoo uu badanaa ka hormaro labada qof midkooda mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha badan ee la xiriira jacaylka dhabta ah ayaa ku saabsan abwaar Soomaaliyeed oo waqti dheer jeclaa gabar u calmaday. inta aanan guda galin sheekada waa kuma qofka ay qosayso abwaar Axmed Salebaan Bide wuxuu in ka badan 60 sano ku soo jiray fanka Soomaaliyeed waana shakhsi ay aad u yaqaanaan dadka ehelka u ah suugaanta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed. waxaa lagu xasuustaa riwaayadihii uu ku caanbaxay ee la oran jiray alle aamin ma iisho taasoo soo baxday horaantii sanadkii 1964 wuxuuna sidoo kale sameeyey ku dhawaad 40 riwaayadood iyo heeso fara badan. wareysi uu siiyey idaacadda BBC Soomaali abwaanka oo hadda ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay taariikh jacayl oo dhab ah aadna u xiiso badan. wuxuu guursaday gabar uu jeclaa muddo 22 sano ka hor ah. in badan oo ka mid ah heesihiisa waxa uu ku cabiray jacaylkiisa. BBC-da ayuu uga sheekeeyay qisadiisa isaga oo sharaxaad ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa uu la soo maray jacaylkiisa. heesahaygu dadku waxay u jecel yihiin nimada u qaaday Awn Maxamed Axmed Kuluc aan u qaaday gabar aan jeclaa waxaana guursaday 22 sano kadib ayuu yiri. heestaas uu abbaanku ku amaanay gabadha jacaylkiisana ugu sheeganayay ayaa qaar ka mid ah erayadeeda ahaayeen sida geed caleen iyo ubax guud ka qariyeen oo gooni laamaha ay midabada geesteen hooban gaadhiyo guntin midho ah leedahay oo soo gandhoodho galka farqa soo daray oo godan warwaaqa ah turtur aan go'aynin iyo gacan webi ku yaalin oon gu iyo jilaal midab goonin baad tahay gabadh yahay kalgacal baan goortan kuu egaba qalbigayga geligiisa wax si aan garanaynin ii gunadoo caashaqay halkay aad igaashay. Axmed Kuluc ayaa qaaday heesta sida geed caleen leh laakiin gabadhii ayuu sheegay in uu nin kale ka guursaday. arrintaasna uu aad uga hinaasay. hinaas macnaheedu waxaa la dhahaa masheer. aan ku sii socono gabadha iyadoo aan heshiinay oo aan ahayn walaalid guurna ku heshiiyey ayuu nasiibkuna kala geeyey ilaa calafku waa nasiibe. waxaa la shaqaynayay Maxamed Aadan Dacar oo aan gurkiisa kala shaqaynayay 2 casho ayaan ku mashquulay markii aan soo laabtayna waxaan u yimid iyadoo gabadhii waxaa luray nafteedii. hinaasi awgiisa ayuu abwaanku sameeyey laga macbaxay maxaa luray naftaadii oo ay ku luqaysay fanaanada iyo Nuura waxayna qayb ka mid ah maraheeda ahaayeen sidan inagoo lamaana
iyo laba qof qaybsire taloogeed kulaashe adiga islumiyo isulugay cadowgo liibintiyadiisiye waa adigan saliidee leexadu sidatee had ballaan cuskanaye liibaantada adduunyada ruuxna la sanmaaye maxaa looraa naftaadii hiba nuura ayaa qaaday heesta maxaa looraa naftaadii muddo kadib abwaan axmed salamaan bide wuxuu calaf u yeeshay inuu guursado gabadhii uu jeclaa 22 sano ka hor waa marwo wanaagsan haddana waan wada joognaa waxaan guursaday 3 sano kadib markii ninkeedii lagu dilay ayuu yidhi abwaan bide qisada abwaanka ka mid ah qisooyinka jacayl oo fanka Soomaaliyeed lagu xusay kuwaasoo marka laga soo tago qisooyinka riwaayadaha ay sidooda kala jireen kuwa dhab ah dhegeystayaal iyo daawadayaal idka daawanaysa waa nooleeyaha bulshada haddaad ku cusub tahay barnaamijkeena maanta sanago yahay intaan ku kulmi doonno barnaamijkan lacayna waxaan kala tagaynaa assalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala